wadadan oo dhirikeedu yahay 1 kiiloomitir iyo bar isla markaana dhaxmarta 3 wax oo ka tirsan degmada Waaberi ayaa dhismaha wadadan waxaa maanta dhagax dhigay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho si xaafadaha degmadaasi looga helo wadooyin ay maraan gaadiidka gurmadka degdega ee ka shaqeeya caafimaadka iyo sidoo kale dibdamiska maamulka degmada Waaberi shacabka iyo ganacsatada degmadaasi ku dhaqan oo garab ka helaya maamulka gobolka Banaadir ayaa iska kaashanaya dhismaha wadadan oo maanta dhagax dhigay duqa magaalada Muqdisho gudoomiyaha degmada Waaberi ee gobolka Banaadir Xuseen Axmed Culiso ayaa warbaahinta u sharaxay dib u dhiska wadadan lagu sameeynaya runtii degmada Waaberi dhibaato badan oo waxa ka jirtay xagga jidadka ah gudoomiyuhu wuxuu amar ku bixiyay in dib loo furo wixii jidoo xiran oo dhan oo ilaa jirtay degmo kasto anaga Waaberi ahaan wadadan aad ay muhiim noogu tahay Waaberi oo dhan ay dhamaysaa waxay ka soo bilaabatay hanti wadaag ilaa iyo waxay tagaysaa wadada Fintuuno waa 1 kiiloomitir iyo bar dadweynaha deegaanka aad ay u soo dhaweeyeen waayo Waaberi dhibka ugu weyn oo haysta waxay tahay dhanka jidadka malahan meel ay ambalaasti marto malahan meel ay dudamiski maro marka wadooyinka ma ahan tan oo kaliya wadooyinka loo badan oo halboolaha muhiim ah xirana jiro ayagana in la furo qorshiyo noo yahay tana ugu horeysay oo maanta aan nasiib u yeelanay inuu gudoomiyaha naga soo qayb galo oo fureyno maxal yiraahdaa wadooyinka loo badan jiro ilaa 5 iyo 6 gaar ah muhiim ah ayaguna aad u xiran dadweynaha degmada Waaberi waxaan u sheegaynaa in wadooyinka dhan ay xiran dib loo furaayo cid kasta oo wada si qalad ugu jirto waxaan ka codsanaynaa inay ku noqoto meeshii saxda ah ee xaq u leedahay safar looga ugu qoran gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale waxa uu sheegay in maamulka gobolka Banaadir oo garab ka helaya shacabka iyo ganacsatada reer Muqdisho ay qorsheynayaan in dib u dhis lagu sameeyo dhammaan wadooyinka magaalada Muqdisho mara hore waxaan u dayactirayna uga shaqeynayna wax badan oo kamid ah wadooyinkii laamiga ahaa jiray waxaan haddana ku jirnaa ku howlanaha maanta wadooyinkii xaafadaha wadadan maanta aan furayno oo aan hadda dhagax dhigayno waa wada 1 kiiloomitir ah meel kasta isaga timiday inaan dib loo dayactiro dadweynaha degmada gobolkan degmada Waaberi deganayna isu xilqaameen annagii ka maamul ahaanna aan abaabulnay farxad yareeran ayay noo tahay waxayna tusaysaa inay shacabku ay bislaadeen ay diyaar u yihiin dalkooda inay dib u dhistaan qaybna ay ka qaataan degmada Waaberi waxay caan ku eeday ilbaxnimada iyo xadaarada ay caan ku eeday ilbaxnimadooduna waxay keentay inay wadooyinkoodii ayaga ay gacantooda ku dayactirtaan lacagihii ay ayaga iska aruuriyeen maanta inaan wadadan intaan u furno 1 kiiloomitir iyo bar oo aan jay ka dhigno wada xaafadeedka ah aan jay ka dhigno ma haddaasi waxay u laabanaysaa degmada Waaberi shacabkeeda iyo maamulka degmada dowladda hoose xamar iyo maamulada degmooyinka ayaa dhawaan amra culus ka soo saaray in la burburiyo dhismooyinka sharci darrada ah ku yaala wadooyinka magaalada Muqdisho si loo fududeeyo isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha isla markaana xilliyada ay dabka kacaan loo helo wadooyin ay maraan gaadiidka dibdamiska iyo kuwa ambalaasta Nuur Saciid Taaliil warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.